kulankan oo ay maanta iskugu yimaadeen magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha Daalo iyo Juba Airline ay kaga hadleen jahwareer iyo marin habaabin lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee u kicitamaya dalka Sacuudiga marka la gaaro waqtiga xajka. waxa ay kulankaasi diiradda ku saareen shakhsiyaad ay sheegeen inay faragelin ku hayaan arrimahaasi oo huban magaca dawladda. markii uu soo ilaaday kulankooda qodobadii ka soo baxay waxa warbaahinta u faahfaahiyay Cabdullaahi Maxamed Cilmi agaasimaha howlgelinta. war-saxaafadeedkayga maanta waxa ku aadan yahay hadal ay si wada jira u soo wada saareen shirkadaha Juba Airways iyo Daalo Airline. hadalkaas oo noqon doona qodobo kooban biidnillaahi tacaala oo aynu u qodobayn doono sidan soo socota. dadaalka iyo doorka ay labada shirkadood ka soo qaateen sanad bixinta iyo adeegida ummadda Soomaaliyeed muddadii ku dhaweyd 30 sano ee wadanka iyo dadku ay ku jireen marxaladaha adag iyo duruufaha qalafsan. sida shirkaduhu ay u joogteeyeen gudashada xajka iyo umrada hawshaana uga soo baxeen si hufan iyo ceeb la'aan oo cid kasta oo aqli fayow oo ujeedo kala lahayn ay qirtay kana marqaati kacday. shakhsiyaad qaarkood ay leeyihiin mas'uuliyad iyo xasaanad qaran oo baryahan soo saarayay warar ay kaga been sheegayaan xaaladaha dhabta ah ee shirkaduhu u fuliyaan shaqada xajka ku baahinaya warbaahinta iyadoo ujeedadooda dhabta ah ay tahay runtii ku qabso ku qadimaysidee. iyo qodobkayga ugu dambeeya oo noqon doona shirkado iyo dilaaliin aan haysan awood iyo fasaxyo ay ku fuliyaan adeega iyo duulimaadyada xajka iyo kuwa kale ee caalamiga ah kuwaas oo raba in si qasab ah hawlahaas 27 sano shirkaduhu ay maal iyo tacab u soo gelinayeen inay si hawl yar ula wareegaan iyagoo isticmaalaya wax kasta oo laga xishoodo. haddii lagu sheegi waayo waa la is sheegaa. qof kasta oo Soomaaliyeed wuu og yahay doorka shirkadaha Daalo iyo Juba ay ka soo qaateen samata bixintii iyo ka soo kabashadii burburkii dadka iyo dalka Soomaaliyeedna ay soo mareen meel kasta baa joogeen. adeega duulimaadyada ee rakaabka iyo shixnadaha gudashada waajibaadka xajka iyo umrada waxay labada shirkadood qayb libaax ka qaateen oo taariikhda ku cad kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dadka. Juba Airways iyo Daalo Airline waxay ballan qaadayaan iyaga oo kaashanaya dawladda Soomaaliyeed shacabka iyo shirkadaha kale ee iyana ku howlan adeega iyo khidmaynta xujayada Soomaaliyeed ee gudanaya waajibaadka xajka inay ugu adeegaan sida ugu fiican uguna suurtagalsan si naxariis iyo turdi ku jirto wabillahi tawfiiq. Maxamed Cabdi Naasir ayaan leh Universal TV magaalada Muqdisho.